الله وبركاته. قاعد شرفت الملكس أدوني كجوكتان كسر دوادي تبجناك كسرت قروح ده ولا شيء زين إن شاء الله ما تروح كذا بدونا أوكسي لايف بليج وحلو يقانو وصور كذا كان أسود بدونه فإذا أقول لذا مقارك وحكي كترته إن شاء الله دي أدنين سينا فيديو قد داوتي أنت أنا الفيديو وقد مفضل مركو راد يعني نقع سبتاي سبسكرايب كان فرت هذا كسي إن شاء الله فرتك أمو قيدون أنا كوبانا كهذا سيدا كلا قبل الكفر لما أنا قرأت الجوكتان وحد اللي هذا ما سيدي سيدا وناكسر مرة بعد جنرت ويروحوا رنتهين أما عاد كومنتي قروح بدن أيقو صار حسان فضل إني كان هيلاوين كومنتي نقروح بدنا إن هلك كسي ودان سيدا كلا علو دكتان أصحابتين سيجن أو فائدة ينصي وده فيديو ولا مستر يديكوا ماسن اوكي فائدooyinka uu leedahay maxaa dhigi jiray halkan soo dhigi doona qoraalkiye waxa kamid ah number 1 in faa'iido uu leedahay maqaarka oo madaqana dark spot kale madmadowga maartay dhibcaha ah wajiga kaasi faa'iido uu leedahay sidoo kale waxa faa'iido uu leedahay uneven skin tone-ka maqaarka maxaa dhigi jiray oo colorkiisa kala duwan yahay maartay oo uneven ka ah oo color isku eg oo liisho qurux badan aan lahayn oo kaleeto sidoo kale tan dal skin maqaarka bahdilan oo aad moodid inay dal skin saaran oo kale sidoo kale dal skin cells maqaarka dhinta saaran oo kale iyo santan wax loo yaqaan oo qoraxdii ma garanaysaa iyaduna madmadowga wajiga u yeesh maarto oo qofka maqaarka qoraxda way dishaa maqaarka ee qoraxda dishayna iyadana ma taqaanaa way ka qaadaa shantaas faa'iido ay u leedahay Oxy Life maxaa la jiray Bleaching insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan waxaan ka dalban kartaan online ka daartaan haddaad rabtaan meel kasta aad ka heli kartaan insha Allah aniga inaan soo gato oo dalbadan rabaa marka insha Allah dalbado oo xaaladda magaalada hadeer ee coronavirus ee kala yaraato aan insha Allah dalbado maalin aan isticmaalayna live oo soo doona bidnilaahi karim intaas ka horna insha Allah waxaan jeclaystay inta aan aniga dalbanin maadaama aan dhawaan arkay bahashan oon ka helay oo dad badan oo isticmaalayna arkay oo aad u amaanaya waxaan jeclaystay idinka inaad kaga faa'iideyso sababtoo janaalkayga wuxuu ku saabsan yahay waa isqurxinta waaye wax walba qurux badan oo aan soo ogaado ama aan soo maqlo ama aan soo arkana waxaan jeclahay nafteeda intaan uga faa'iideyn kow inaad idinka kaga faa'iideeyo sidoo kale nafteeda inaan uga faa'iideeyo marka walaaleyga qaaliga ka faa'iideysta idinleeyahay bahasha iyada ah inaba caadi maaha إن شاء الله مركز أسكو قصني سيد وأسكو قصيصة لبا حب ومنا كرنك ومنا بوضواي وأسكو قصيصة وجي على وقت لقلي علشان وجي على وقت لقلي فيسك مركز وحاسمين نسا وحكي إلى علينا نسا سونيها مرت سونيها وكي إلى شن سونيها مركز فاسلين مرنا نسا تكلنا وكي إلى شن وجي كم كان مرنا سيد كي إلى شن سونيها marka waxa sugaysaa 10 ilaa 15 daqiiqo ayaa ku sugaysaa ka haynaysa wajiga markuu ku qalana tartiib ayaa maxaa la jiray iskaga qaadaysa iskaga dhaqaysa iska soo dhaqaysa musqusha tagaysa soo dhaqaysa soo marka maxaa la jiray madmadow wajiga haduu qorax iyo waxa dishay haduu bahdilna waxa dhan skinka isla markii way ka qaasa wajiga waxaan marsano u qaadanaya marka qoraxda bariyahaas hore iska ilaaliya labada bariyo hore oo kala qoraxda iska ilaaliya ama qoraxda xiliyada ay qabowga oo kala sun screen isticmaala oo marsada dhibaato badan wajiga uma keenayso bishiina hal mar oo kala ku tuuran kartaa gurigaaga intaad taqaan wajiga dhaqatid nadiifsatid isteebada wajiga loo nadiifsado kala martid kadibna iyada isku dambaysiin kartaa oo Soomaaliga gabdho sameeyna waa arki jiray وبدنا بيها عساسة يبودد وحاس استعمال جل لكن تن ويكدوانتها أو محيله وواح وجه لو طلق له سو لبعته وجه مكينه سو وواح وجه لو طلق له هل مرنا الاستعمال كله بشيء وكلته هل مرة استعمال سو وجه قاعد وصونوا له سو يعني أوقات قادد رفاتك يولد سكينك وكلته أوقات قادد مركا إيضا كفائدة سو عمل لي مركز الدنيا كجوتان طلبنا مال الماشي كطلبان كرتان متكامل كسوق طلب لو قضوا وحيوان السوق رحية إن شاء الله إيضا معنا سوق هذا أنا نفتكر وحنا إن شاء الله نسوق قطع وطلبنا بإذن الله الكريم سايسو شيء وأنا إنتسند أنا مال أنا استعمالها إن شاء الله هذا الله يرادو لما أنتوا ما سنتين دوشة فيديو دعوتين محل يجري أنت فيديو لما أقول لما أنتوا حد كتير خير بركة السلام عليكم ورحمة الله